safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay in wax xukun ah lagu riday dhalinyaro Soomaali ah oo dhan ilaa 119 oo dalkaasi Hindiya ugu xidhan eedo la xidhiidha burcadbadeednimo. Safaaraddu waxay sheegtay in warka ku saabsan dacwadda dhalinyaradaasi ay si khaldan u tabiyeen warbaahinta Hindiya iyo qaar ka mid ah kuwa Soomaalida. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee New Delhi ku waraystay safiirka dalka Hindiya u fadhida Soomaaliya ama safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya Ebyan Ladane Saalax waxaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda dhabta ah ee maxaabiistaasi iyo sida ay tahay. Voice of America iyo Ismaaciil dhammaantiin waa idin wada salaamay aad baad u mahadsantihiin inaad soo raadiseen warkaan xaqiiqiisana aan idiin sheegno wax xukun ah oo dhacay ma jiraan. maxkamadda waxa weeye arrinteeda weli way socotaa. arrintii maadaama ay weli socoto oo maaragtay processka u socdo dhalinyarada u socdo waxa weeye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey waalidiintii eheladii iyo dadkii maaragtay Soomaaliya joog lagu khalkhalgeliyey waxba kama jiraan. weli maxkamaddii waa socotaa wax go-aanana lama gaarinin. marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmi ah soo saarto waynu si fiican uga wada hadli doonaa. laakiin maanta waxaanu samaynay press release yar oo maaragtay arrinta ku saabsan iyo press release kaleeto oo ninkii lawyerka u ahaa maxaabiista u ahaa oo familkoodii ay u doorteen inuu lawyer u noqdo oo isagana uu press release ka sameeyey arrintan iyada ah. marka warkan warbaahintu qorayso maalmahanba ku jiray siyaabo kala duwan looga hadlay waxaad leedahay waxba kama jiraan. warkaasi waxa weeye si khaldan bay wax u fasirteen. warkaasi waxba kama jiraan. maxkamadduna ilaa iyo hadda xukun ay riday ma uu jiro. goormaa la filaya in xukun la rido? processka wuu socdaa. 20 bishay ahayd markii la geeyey waraaqaha dadka laga qabtay. 30 bisha waxay filayaan in laga aqbalo oo maaragtay jawaab ay helaan. waxay qaadan kartaa muddo bilo oo kale ay qaadan kartaa inta jawaab laga helayo oo xukun dhacayo. marka uu sheegay qareenka. marka weli waa arrin maxkamad ku jirta oo eedeysanayaashaasina waa xukun sugayaal. waxa weeye waa sidaas u tiriyooyaan waa xukun sugayaal waana maaragtay maxkamaddeena arrintu ku socotaa in laga hordego ama la carqaladeeyana wax wanaagsan ma aha. safiirka Soomaaliya u fadhida dalka Hindiya Ebyan Ladane Saalax oo aan khadka telefoonka ku wareysay